saabiriin iyo sabo Allah u naxariisto. إن إلهي شيدك يلعق لها عندك القاضي إن إلهي دنيرة وأرحمه إن إلهي تهريبك يدباتوين كدنيرة الصومالية إلهي كجوجي مقال كان وحربا شخص كستو الصوماليات حدي ودمير كيس شقينا إنه يدعيه قف كستي ولا الكيسة والله برو إن سنة كتير وحان كحسو سامس يقول يعبدنا إن لما قبر لقى عروسة ولا يقول سنة marka ilaa hadda waxaan salay laahay labada gabar laga guursaday ma xumaynimo aan xaggay ka socotaa mis ayagaan ahayn naagaan go'aan lahayn. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wacan wanaagsan idin lahaantii meel kasta adduunka ka joogtaan halka naga daawanaysan barteena Facebook iyo waliba YouTube-ka qadar shariif fadlan haday tahay markuu ugu horeysay ciwaanada subscribe noo saar aad iyo aad ba u mahadsantihiin ma caawo sida arkaysaan waxa dhamaaday sanadkii 2024 waxaa soo galay sanadkii 2025 su'aasha meesha taala ayaa ah maxaad ka xasuusataa sanadkii tagay ee 2024 maxaad rajaynaysaa ama aad ilaahay xaqiisa ka filanaysaa sanadka 2025 sanadka 2024 waxaan ka xasuusanaa cashiro badan oo nolosha ayna bartay waxaan ka xasuusanaa waqtiyo badan oo adag waxaan ka xasuusanaa waqtiyo badan oo wanaagsan waxaan galnay safaro fara badan waxaan xaqiijinay riyooyin fara badan oo sanadkii 2024 aan meel noogu qornaa waxa ilaahay raxmaanka ah inoo ogolaaday in aan gaarno qaybo kamid ah guulaheena qaybaha kale inoo dhimanay ilaahay xaqiisa aan ka rajaynayno sanadkan 2025 waxaan rajaynaynaa in ilaahay sanadkeena ka dhigo sanadkeena in ilaahay ka dhigo sanadkeena in ilaahay ka dhigo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan u duceynayaa waxaan leeyahay ilaahay waqtigooda quruxda badnaa ha ka dhigo guud ahaan dalka Soomaaliyeedna waan u duceynayaa ilaahay dawladda caadil ah oo diinta iyo dalka iyo dadka u shaqeyso ilaahay ha siiyo halkan waxaan marka si gaar ah fariin uga dirayaa guud ahaan asxaabtayda magacayga iyo muuqayga taqaan gaar ahaan familkayga waxaan leeyahay ilaahay sanadkan sanadkiisa kale barwaaqo iyo bashbash iyo reereyn iyo farxad ilaahay nagu gaarsiiyo magaalada Muqdisho kama jirto dabaaldeg aad iyo aad u fara badan sababtoo ah sanadkan waxa la dhahaa ma aha sanadka islaamka waa run inaga tiro baan oo dhamaatay ma ogiye sanadkeena islaamka ma la gaarin wali oo wax ayaa ka dhiman waxaan laakiin u rajaynayaa dadkan tiradan xisaabsado ka soo qaad dhammaan dadka dunida ku nool oo dhan waxa jirta taariikh ay xisaabsadaan markii laga tago tan islaamka taariikhdan miilaadiga ah ayaa la xisaabsadaa iyaduna caawa ay ku egtahay oo sanad cusub ayaa bilowday sanadka cusub marka waxaan u rajaynaynaa ummadda islaamka oo dhan in ilaahay sanadkooda ka dhigo in ilaahay madmadowga iyo mugdiga ka dulqaado in ilaahay shiidka iyo lacag la'aanta ka dulqaado in ilaahay dhalinyarada uu arxamo in ilaahay tahriibka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ilaahay ka joojiyo muuqaalkan waxaan rabaa shakhsi kasta oo Soomaaliyeed haddii uu damiirkiisa shaqeynayo inuu u duceeyo qof kasta ee walaalkiisa insha Allah ta'ala wasla arki doona magaalada Muqdisho iyo qaabka ay u egtahay caawa oo sanadka cusub ah وما إك مجال ودبالدقي السنة كعصب لكن وحالنا هاي شخص والبو لمبرة سود مادين لبعض كل لبعضني أفرت أي أوبل هذين لبعض كل لبعضني شنطة وحالنا هاي قولي يا جبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة السلام يا أمد الصومالية درمان سعوديين وحالي السنة وعنا وناك سنة كان سنة كيسة كلاته بس بشي برواقينا وكجارنا رجينا يا السنة كهرباء بحنا وحياة بدنا كحسوستا ضد هذه قيم بدنا وبحتي وأصحاب كان وحرجينا كيور إنه يجوا في عناده إن شاء الله. سند وعن وناسن لما أمد الصوماليات هل كان أيا أوهم بلينا. المدة هذا كله تهرت واحد بالدق له هو مجالات المشكل جينا مله. سند عصبنا أنا مد بالدق إنه ما قرأت. لكن وحالينا هاي سند كان تجي وسوتينا سند كعصبنا وحالينا هاي shartiisa Allah naga fogeeyo khayrkiisana Allah na waafajiyo sanadkii hore waxa ka xasuustaa inaan imtixaanka form 4 ka galay aanu ku baasay aanu teleefankii liga qaatay ma fahamteen
laakiin waa soo ceshtaa alxamdulilah xoolo ma dhumaan xalaal ma dhuntaan leh sanadkan hadda bilowday waxaa rajeynaa khayr iyo khayraad iyo horumar inaanay caan noqdo wejigeena inaan lii fahmo ma rabi marka guulaystaa leeyahay sanad guuri wacan bro sanadkii tagay waxaan ka xasuustaa mise ugu yaab badnaa in laba gabar laga aroosay oo laga guursaday marka ilaa hadda waxaan salay laahay labada gabar laga guursaday ma xumaynimo aan xaggayga ka socotaa mis ayagaan ahayn naaga aan go'aan lahayn waxaan aan fahmi laahay sanadkii tagay laba gabar laga guursaday marka ilaa hadda wixii maskaxdayda su'aal ay weydiinay caawa kowga bisha June 2025 taariikhda ay tahay wixii maskaxdayda mar walba weydiisaa ma anaga khumay ah mis naagaha naaga aan go'aan lahayn koos waa dareemi kartaa nin laba gabar laga guursaday ma fahamtay guurkaaga marka xanuun culays dareem 2024 saddex laba dhacda horta igu xanuun badneed aan igu dhacay shakhsiyaadteeda hal dhacdo waxa waaye degmada aan aad deganaa degmada Boondheer fanaanadan inay caan ka noqotay oo xitaa heer la gaaray oo in la dhibsado oo la dhaw fanaanada ku gadeenahay waxaan siib dhacdo labada markii idin sheegaa dhacdo labada waxay tahay 2024 saddex gabdhood soo shukaansaday horta laba Allah u naxariisto qabriga jiraan xanuun soo wicii labo qabriga jiraan Allah u naxariisto mida hadda noo laak sariiray saaran tahay marka dhacdadii wal xanuunta badneed waxa waay tan waay saddex gabdhood shukaansaday midna sariiray saaran tahay labana Allah u naxariisto ya raxma saabrin iyo sabo Allah u naxariisto يا وكر البحث يقلي sanadkii tagay waxaan ka xasuustaa 2024 inay soo socoto 2025 dhammaan waxaan idin leeyahay happy new year waxaa kaloo idin leeyahay sanadkii tagay 2024 alxamdulillah sanadkan soo socda 2025 bismillaah sanadkani wuxuu idin noqon doonaa sanadkan wuxuu inoo noqon doonaa sanadkii igu horeeyay ee nolosheeda aan ka dhex muuqdo social media maxaa yeelay 2025 wuxuu noqday sanadkii ugu farxadda badneed iyo sanadkii waxyaalo fara badan iskaga bedeli lahaa laakiin waxaan rajeynaa sanadkan inuu noqdo sanad wanaagsan kii tagayna waxa uu maqawaa cafiyo sanadka waa iska cafiyo waxa muu qawaani caada waa cafiyo كوريس waxaan in bajaajle ku shaqeysta magaalada Muqdisho sanadkii hore waxay walaab badnaa 2024 ka xasuustaa haweenada kamid ah waxa qaaday gabdho waxaana ka soo qaaday liido gabdhii waxa u waday degmada Daynil gaar ahaan xaafad loo yaqaan Odweyne gabdhii waxay ii sheegeen koor sacadiina inay sii doonaan gabdhii ultimaalishi lacag $4 ku liishi gabdhii marka qaaday waxay sii ballameen wiil dhalinyaro ah meeshii marka tay meesha lacag suugay mobilkii liiga qaatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المسلمين الصوماليين سلامة مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المسلمين وحليها سنة وناس سنة وبرواق له. سنة كان إلهي أنا أقول سنة كي نرش أنا كوه رجلين. دمان واحد دوات سنة إلى دوات ذا كبحشو. سيبا أنا إلهي دوات ذا كبحشو. والله حرجينا اسكاب بلونا كبع سنة كان قرأت والله وكنا قاعد قرأت قوس هاي نوجرا لا سنتنا نوسود الدجيو أنت مسلمين ودواتي سنة اسكاب بلونا إلهي إن إلهي وسود الدجيو أنا قا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سنة كيس كلا نبض إبراري برواقة لأنه قرسية بيس الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.